maahan markii ugu horeysay ee sheekadan aan idin hayo dhacdo ee dalkii ayaanba ku aragnayba wax badan oo ka dhaco laakiinse isla wadankan Masar waa mid ku cusub sida loogu falceliyay ayaa haddana wixii noqotayba mid cajiib ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالقة ولاشين الزيو إذن الله أنا وعافمات قبائل ما أنتم حايدين رجينا يا إناد يا عافمات قبطان سود الدوادة ومركل أي فيديو عصب وزيو إذن الله سود الدوادة سوقات الشاهينة ما أنت محايدين هيا ما أنتم حاينو هيا قصة سوق العدد كم مصر خاصة تولو dadka tuulada degan caadi maahan hadaa hore ila joogto waa maasan tahay daawashada fiidiyogan hadii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelkan waa channelkaaga subscribe si uu ku dhaafin qiso walbo aniga aan soo dhigo sheekadan hadii aan u guda galnabo maalmahan waxa socday arin la yaab leh maahan markii ugu horeysay ee sheekadan aan idin hayo dhacdo ee dalkii ayaanba ku aragnayba wax badan oo ka dhaco laakiinse isla wadankan Masar waa mid ku cusub sida loogu falceliyay ayaa haddana wixii noqotayba mid cajiib ah. waa maxay qisadaas soo dhawaada si aad ugu bogataan qisadan inaba caadiga ahayn soo qaata shaahiina soo nasikada xasiis kanina waa ku maasantihiin daawashada fiidiyogan qisadan ay wixii u dhacaysaa sida tan marka hore aan in yar idin dulmaro guurka Masar waa sidee ama arooska Masar gabadha iyo wiilka markay isguursanayaan wiilka waxa sharuud ah in uu soo diyaariyo shukada يعني guriga oo maran isla gabadha ay wixii soo diyaarinaysaa wax walba oo guriga lagu dhax isticmaalayo waa taas sharcigooda iyo xeerkooda hadii baadiyo degan hadii magaalo degan yihiinba sheekadan ayaa wixii noqotay mid ayaantan la hadalhayo warbaahin xaafad qof caadi maahan gabar ayaa waxa soo doontay wiilkii markii la siiyay ee isfahmeen sheeko kadib ayaa waxa dhacay aroos aad u qurux badan arooskii sidii dhaqanka ahay ayaa loo soo diyaariyay waana gabadhii iyo wiilkii way aqal galeen aan idin dhaafin dadkan beedkan ku nool maahan dad dhaqamadooda ka faano gobol ay wixii u leeyihiin dhaqan ama diinta haystaan ama yeesanin laakiinse kan diinta haysto ka haysanbo xagga dhaqanka aad ay ugu adag yihiin Soomaal waa arkay dad badan oo dhaqamo leh haddana markii wadankii ay ka soo tayaan dhaqanka ka tago gabadha markii la guursaday oo guriga la geeyay subaxii ninku uu soo buriyay inta ma uusan ku aamusin ay wuxuu sii raaciyay gabadhan reerkan soo siiyeen in aysan gabar ahayn reerkii qaracan gabadhii la yaab diriski waxaan ku dhahay afkiya kala tagay qof walbo arintan maahan arin hore loogu bartay magaalkana maahan meesha ay ka dhacayso waa meel gobol ah yani oo iska xoogaa baadiya ninkii il adeeg uu dhameeyay reerkii markuu hor imaado uu ku yir gabadhiina gabar maahan habartii iyo odaygii iyo reerka wiilashii la dhasheen naxdin gabar xalay la gurigay saakan guriga ku dhax fadhiso dirisku way ku weydiinayaan laasim waa wala isweydiinaa meeshaan waxa waa wadanka waa laga daran yahay maxaa jira iyo gabadhii xalay bal aroos iimaan maxaa keenay ceebta adduunka si waxaba ka daranbo gabadhii markii caawla gurigay subaxina guriga lagu soo celiyay ama kaag ee umadii indhaha taagayaan ay hooyada si qaas ah u wareysatay gabadheedii maxaa qaldan markaas wuxuu ku tiri hooyo aniga waxa sidii ima maraan ninkan beenu iga sheegoya gabadhii iyo hooyadeeda way isla duubteen ilaan gabar walba hooyadeeda gabar kasto waxa ku kalsoonaa karto hooyadeeda ayadan waxay ku kalsoon tahay hooyadeeda qof kale ee ugu kalsooni badan tahay hooyadeeda ma jiro hooyadad markay u sheegtay arinta ay ku tiri hooyo ninkan beenu iga sheegaa waxaana ma jiraan ee familkiina magaalada ku fadeexaysan yihiin ay hooyada gabadheeda waxay ku tiri arinta ma hubtaa waa huwa okay dhakhtar isla aaday dhakhtarkii ayaa wuxuu soo cadeeyay gabadhan in ay gabar tahay aabaheeda iyo walaaladeed way ku farxeen iyo famil ahaan dadkii u dhawaa jawaabtii dhakhtarka ay sugayeen see laakiin see loogu dhaadhacsi karaa familka
درسكا يعني درسكا Soomaali waxay dhahdaa waa ilaal aan lagu dirsan gabar xal la gurigay subaxii gurigooda joogto jaa deriskii nin kasto ninkii kan u sii gaarsi ayaga warbaahin ka daranbo toorka markuu ku yiri gabadhaadu waa gabar hooyadii ayadoo faraxsan ay guriga ku soo laabatay kadib ay waxay sameysay xafladaas ee ku cadeynayso doctorka hadalkiisa in uu run yahay xafladaas yaa dhigay markay islaamiga deriska gabadha dadkii gabdhihii aadanaa miyaa xaflada dhigay waxaa dhigay wixii magac wiil sheegtay ama rag sheegtay raggii xaafada isku soo baxay koodii weyn iyo koodii yar ayagoo sheegayo in gabadhan ee gabar tahay xafladaas kama soo qayb gelinba wax dumar la dhaho wax yar oo gabadh aad u dhawaayo familkeeda iska daa laakiinse saaxiib haday ahaaleed ama haday deris ahaaleed wax dumar laga ma casuumin laakiinse dadka casuunayo dhan waxay ahaayeen rag gabadhii ay tunka saarteen kadibna magaalada dhan lagu soo wareejiyay dhacdadan la yaab kale oo maalmaha la hadal hayo ay waxay noqotay dhacdadii ugu horeysay ee magaaladan soo marto si ee u noqotay tii ugu dambeysay ayaa haddana dabaaldegaas loogu dhigay looguna yeeray ragga magaalada joogo dhan isla casuumaadaas ayaan ka marneen familka wiilka ficilkaas sameeyay waxa dabaaldegan iyo xafladan loo sameeyay micnaheed ay wuxuu noqonayaa si gabar dambaa loogu qaldamin dhacdadan oo maalmahan ka cusub magaalada ayaa waxaa loo kala dhigay laba qodobahaas ayaa waxa ay noqonayaan in ninkan familka gabadha iyo familkiisa xurduf hore u dhaxeysay ama dagaal hore u dhaxeeyay dagaalkaas oo ahayn mid yani faahfaahsan ama banaanka yaalo dagaal hooseeyay Soomaali dhahday familada ayaa wuxuu u dhaxeeyay dagaal hooseeyay mid waa midaas oo argudasho darteed ayuu gabadhan in uu u fadeexeeyo ugu talagalay qodobka labaad ay haddana wixii ku sheegeen gabadhan wiilka markuu baranayay xogaa inay ku adkeysay asigana xanaaq uu taa ka qaaday caadi waa isku adkeeyaa gabar walba nin markay shukaansanaysa markii koowaad hore kama ogolaato markii labaad xataa waxa laga yaabaa inuu ku gacan seero markii saddexaad xataa waxa laga yaabaa inay dhahdo oo aniga may adigu ku rabi maadaama markuu oo shukaansanay ee diiday mar labaad hadan isku daygii yani laga ogolaaday oo la shukaansaday kadibna familka loo geeyay kadibna la dhaay aaba ninkaana wata la socdahay uqudadii seeba markii hore ii diidi kartaa ayuu falkan u sameeyay labadaas qodob markii la isbarbar dhigay ee tan xaqiiqada soo baxday ay waxay noqon kartaa isleeyahay sida dadka badana ay u hadal hayaan xurdufta ka dhaxaysay labada famil oo la rabiba cidaan gabadhooda dad in la fadeexeeyo kadibna gabadhaas ee noqoto mid magaalada ku fadeexaysan dib dambana loo guursanin macal familkana ee noqdaan famil xun oo gabadhooda idibsaneen saas darteeda ayaa hadeer oo dhibkan u dhacay leeyahay reerka gabadha ayaa yareysanin oo arintaas iska soo tirtiray kadib markii 12 dhakhtar ee gabadhaas isku marsiyeen xafladda intaas la eego ragga kaliya lagu casuumin loo dhigay cadeen inta ka badanne looma baahna ayaa la leeyahay taasi ayaa waxa ay tahay gabadha sharafteed mid lagu ilaalinay iyo qoyska ay ka soo jeedabo isku soo dudub sheekadan ilaa ay hadda way ay taagan tahay kala tagista maxkamadda ee sheeko xiiso leh ee noqoto waa idin soo gudbi doonaa haddii yani iska micna lagu dhameeyane waa ka socon doonaa insha Allah biidnillah laakiin gabadha bikaas ma furno oo uu soo buriyay in uu fadeexay oo kariyo rabi fadeexadin way socoweyso oo reerka gabadha way isdifaaceen oo arintan waxay taayihiin ma soconayso waasiyo idin leeyahay meeshan soo gaartay waa ku mahadsantihiin haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelka waa channelkaaga dheh subscribe si uu ku dhaafin wax walba aniga aan soo dhigo haddii halkan ila soo gaartay oo ku mahadsan tahay daawashada videogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawo channelka waa channelkaaga subscribe dheh furo gambaleelka si uu ku dhaafin qiso walba aan soo dhigo waasiyo idin leh haddii aad qiso noocan ii heeso iyo qiso ka qurux badanba igula soo wadaag Instagram-ka xisaabiya inta aan la xisaabin ka hor